magaalada Jabuuti waxa ka dhacay bismillah dagaal canfar iyo Soomaali baa iska shay wallahi bilaa umada Soomaaliyeed dagaal aqalada la guweyn waa ka dhacay canfar baa gubtay darkiisa. Xaaladda dalka Jabuuti ayaa maanta ah mid cirka ku shareeran iyadoo dagaal culus uu ka qarxay Jabuuti isla markaana dagaalkaasi u dhaxeeyo ciidamada dawladda Jabuuti iyo maleeshiyad kale oo ka tirsan canfarta. Wararka ka imaanaya dalka Jabuuti ayaa waxay sheegayaan in 7 askari ee halkaasi ay ku dhinteen kuwa kalena lagu afduubtay. Dagaalkan culus ee dhexmaray ciidamada dawladda Jabuuti iyo kooxda canfarta ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta la xaqiijiyay 7 askari ku dhimatay dagaalkaasi halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka dhexmaray ciidamada dawladda Jabuuti iyo sidoo kale kuwa canfarta oo la tilmaamay in ay weerarka soo qaadeen. Sidoo kale xogaha qaar ayaa waxay sheegayaan in ilaa ay tiro gaaraysa 6 askari dagaalkaasi lagu afduubtay, inkastoo warar kale oo madax bannaan ay sheegayaan in tirada askarta la qafaashay ay intaasi ka badan yihiin maadaama dagaalku uu yahay mid ilaa iyo hadda socda isla markaana dadka deegaanka ay walaac badan aad uga muujinayaan. Waxaa muuqata in dadkii bannaanka isugu soo baxeen iyagoo aad uga qaxaya goobaha uu dagaalku ka socdo. Hubka noocyadiisa kala duwan ayay isku adeegsanayaan labada dhinac, walow ilaa iyo hadda wax dhexdhexaadin ah aan la kala dhex dhigin ciidamada dawladda Jabuuti iyo kuwa canfarta ee dagaalku u dhaxeeyo. Madaxda Jabuuti ilaa iyo hadda wax wararka ma aysan soo saarin dagaalkan u dhaxeeya ciidamada dawladda Jabuuti iyo kuwa canfarta, balse dadka deegaanka ayaa arrintan ay ku noqotay fajac iyo filanwaa maadaama dagaalku ahaa mid sida dadka deegaanka ay sheegeen ay soo qaadeen ciidamada canfarta.